الحمد لله رب العالمين وحمانتا oo ah 22 September maalin 2021 maalin salaasa ah noo soo dhameystirmay oo noona suurta gashay aniga iyo gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi in aanu soo xulno liiskii 12 tartamayaasha 12 kursi ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalka sare u metelaya gobolada waqooyi ee Somaliland liiskaanu soo gudbinay uu nala hubiyay waajibaadkii ka saarnaa uu ka gutay waxa uu maanta diyaar u yahay in aanu shaacino una soo bandhigno bulshooyinka Soomaaliyeed murashaxiinta kuraasta u tartamaysaana ay ogaadaan waxaanu marnay wado dheer oo aanu ku kala xuleynay tartamayaal fara badan anagoo shuruudihii dastuuriga ahaa iyo kuwii habraacyada ku qornaaba la eegnay kuna hubinay kuna jeegaraynay waxa kaloo iyadana noo gabagaba ahoo aan soo gabagabaynay ergadii 23 oday dhaqameed iyo 23 ergey oo noqonaya baarlamaanka Somaliland ee dooran doona murashaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Somaliland waxaan u hambalyeeynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble doorka shariifka ah ee runtii iyo isxilqaamida iyo mas'uuliyadda uu ka qaatay in ay hore u socoto doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland oo maanta aynu halkan ku shaacinayno musharaxiinta aqalka sare ra'iisul nala hubiyay noo baarigay noogu duceeyay mar walba ra'iisul wasaare taageeradaada waa u baahanahay iyo garab istaagaaga waanad ku mahadsan tahay runtii mar walba sida aad noola barbar taagan tahay in shaqadaasi ay hore u dhaqaaqdo intaasan ku soo gabagabeynaya odaytinimada gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahina waan hambalyeynaya iyo dulqaadka uu muujiyay waxa kaloo uu hambalyeynaya doorka runtii gudoomiyaha maxkamadda sare uu geedi socodkan oo dhan uu ka qaatay intaasan ku soo koobi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh muddaanu yani arrintan wadnay oo khilaaf naga dhex jiray alxamdulilaahi rabbil caalamiin waanu dhammaynay kaas war anigu hadda badan oon ku darayaa ma jiro intii uu yidhi ayaa noo ah oo aan ku raacsanahay oo ay tahay sidaa uu sheegay ayaan kula midaysanahay oon ku raacsanahay shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalin taariikh ah gaar ahaan aniga taariikh gooni ilaa maanta waxaa halkan ku qaabilay gudoomiyaha Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi oo maanta halkan ii keenay liiskii aqalka sare ee Somaliland ee gobolada waqooyi alxamdulillah muddo dheer halgan dheer oo aan soo wada marnay saddexdayadaba maanta alxamdulillah waxaan halkan ku haynaa liiska musharaxiinta aqalka sare ee Somaliland shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay garab istaaga u hambalyeeya oo ducada waa dhinaciina hawshaan musharaxiinta u taagan aqalka sare ee Somaliland waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryayaa inuu noo soo gabagabowdo horaanta isbuuca tartanka ka dhici doono insha Allah magaalada Muqdisho waxaan rajeynayaa dhammaan musharaxiintan aqalka sare inuu Ilaahay u fududeeyo iyagana Allah subxaanahu wa ta'ala garabkooda galo anigana waa soo dhaweynayaa ducadii waa ku tufay waan garab istaagay sidaan hore idinkugu sheegayna doorashadii way socotay ma sha Allah maanta horumar ayuu dalka ku talaabsaday doorashadii Somaliland sidaan ayay noogu furan tahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh